باسمك الحق فبما أنك الحق باينت برامج كنت أنا نقول قلن بالا كوب الله يا أنا وأنا كريبين كحريني ونتاجن إيمانك ساعدنا كمرة بيسور جلسوا بلا برامج بسنك وقير بدن بسم الله وأكو بسنك أنكو بلا يا وحول بقول بلا وأنا بسنك وقير بدن إذا بش يا برواقة بلو جرا بريا بدامي كلجتان برامج كبسنك أنكو بلا يا بسم الله الرحمن الرحيم سلام سعدان ساقون سكينة سجالي يسوع دوينة سلامة سورة جنية كالجعيلك ساشمية دي سامحة ساقط سورة دوين سماع وعد سعدال برواقية سحة تكون بدن سلاقي ميسن قابيسن قايسن روح بدن قاليا قصد كذا وعديهاي قياننا أي كمرنتاي عن ضد سلامته ومد دردريسا دنيا لغو سودا بولي ديارمون عيسى حساب اللهين سلام الله تعالى عليكم وبركاته سيدا داركيسان ما تاريخ وحيكوا استيسان تاي 12 أكتوبر ومالين تلين ديسي على كايغا قروح البدن على كايغا سوبان صعب قانون تنو سيدا داركيسان بوركان مانتو حكو حسن ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaal waxa kaloo ku xusan boorka maalintii la aasaasay ururka 11 January 2016 marba haddaad aragtaan muuqaalka eega marqaanku yaa idin sirine maanka soo xaadiriyo waa ururka waxbarashada iyo wacyigelinta garaadmaal oo madadaalo idin hayo mawlihiinana aqoonsada waxaan ku soo dhaweynayaa oo aan wada sugaynaa sidaad u dhantihiin madaxa waxbarashada ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaal brofesor mudane farxaan maxamed iimaan sacabkiiga soo dhaweyntina waa xadmud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مامورك إسكولك معلمين أرضيدا إسكولك وصدح يسر على وارئك اسلام ياسنا عفتهم وسلامتهم كنت هذا أقف رحسنا هنا ما تكسوق يتقلوا مناسبة 12 أكتوبر oo ah maalinta caalamka Soomaaliyeed ee la hindisay runtii munaasabadaha noocan oo kale waxa loo qabanayo waxay tahay in bulshada gaar ahaan dhalinyarada ay ogaadaan qiimaha uu caalamka Soomaaliya ugu fadhiyo bulshooyinka Soomaaliyeed dabcan waxaan jeclahay inaan halkaani wax yar ka dhaho kadibna du'aabo karaan noqdo tixayar oo caalamka Soomaaliya uu sameeyay ku soo gabagabeeyo marka ugu horeysa horta caalamka Soomaaliyeed sidaan wada ogsoonaa waxa uu ka kooban yahay laba midab oo ah buluug iyo cadaan ninka hindisay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cawaale Liibaan dabcan ajaa'ibta uu caalamka Soomaaliya leeyahay waxaa ka mid ah inuu shabaho ama se uu eg yahay cirka oo kale taas oo ah haddii in badan loo fiirsado mid ajaa'ib ah oo qofkii in badan ku fikirana wax oo soo baxayaan sidaan wada ogsoonahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala koonka markuu abuuray waxaa jira waxyaabo permanent ahna weligood aan guuri doonin ilaa maalinka qiyaamo uu ka dhaco waxa ka mid ah cirka ilaa maalinka qiyaamo saas u taagnaan doona marka maadaama caalamka Soomaaliyeed uu leeyahay midabka cirka oo kale buluug iyo cadaan uu leeyahay taasi waxay muujinaysaa in caalamka Soomaaliya hadduu aaba karaal noqdo uu noqon doono
mid joogto ah oo maguuraan ah hadduu eeba karaan noqdo insha allah waanu rajaynaynaa. mideeda kale calanka Soomaaliya marka la dhaho ama calan marka la dhaho wadan walba ama bulsho walba oo caalamkaasi ku nool waxay leedahay astaamo kaga soocan yihiin bulshada kale ee caalamka ku nool. anaga hadda Soomaalinahay astaamaha kaga soocanaha bulshada kale caalamka ku nool waxaa ka mid ah calanka Soomaaliya oo aanan jirin bulshada la wadaagto oo hadda caalamkaas ku nool. taasina waxay noqonaysaa haddii calanka Soomaaliya la waayo in ay ka dhigan tahay in la waayo qayb ka mid ah astaamihii bulshada Soomaaliyeed ee kaga soocneed bulshooyinka kale ee caalamka. marka ma ahan wax lagu soo koobi karo war qiimaha uu calanka Soomaaliya u leeyahay bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaa mar kale ugu hambalyeynaa dhammaan maamulka iskuulka, macallimiinta, ardayda, xubnaha reer Garaadmaal ee ku sugan Al-Anwaar munaasabadda 12 Oktoobar. hambalyo ayaan leeyahay. aan kusoo gabagabeeyo aanan hadalka dheeraynin taxaha yar ee aan u sameeyey calanka Soomaaliya kaas oo aan jeclaystay inaan halkaani ka soo jeediyo. taxahan waxaan kaga hadlaa hadduu eeba karaan noqdo calanka Soomaaliya iyo qiimaha uu ugu fadhiyo bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabaa calankeena quruxda leh maalinkii la curiyey xidigtana lagu cabiray caddaan iyo baluug iyo loo dhameeyey ciziye farxad ku wada caweynay caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. caraftii xorriyadda maalinkay Soomaali xorato geesiga Cabdullaahi Timcad ugu ciseeyey oraahdii Soomaalida ku caanbaxday ka nasiib ka nasaar caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. qolo waliba calankeed calaamad u gooniya marka ay ku cabirteen adigu si cajaa'ibta cirkaasaad ku ceen tahay caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. cisho walboo la joogiyo cilmi barashadiisiyo camal haddaan ku dhex jiro cisho walboo la joogiyo cilmi barashadiisiyo camal haddaan ku dhex jiro caynadaada quruxda leh tix inaan ka curiyaa kama daala carabke caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. curudada jirkaygiyo dhiiga dhex cararaayo sanbabadaad ku coon tahay caloosha hoy ku leedahay wadnaha camal la jira tahay cid walbaba ogeysiin caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. caqli iyo dadaal iyo ciyaar iyo mashxarad iyo munaasabad aanbaacayn ah inaan kugu ciseeyaa calmatay nafteedii caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. cilad kuuma ogolni cayna daa warkeedo cid walba oo wax kugu tira cunaha inaan ku dhagaa caalamkan u joogaa caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. tix walbaan curiyaa cayn walbaba u hadlaa qiimahaaga caam ahaan oraah kuma camimi karee caadil waxaan ka baryaa ciida inaadan ka hoos marin. waxaan leeyahay mar kale hambalyo dhammaan reer Al-Anwaar. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxa waxbarashada ee ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee Garaadmaal. la soco ama ogsoonow daawada ama dhegaysto inay maanta kuu soo bandhigi doonaan hadduu baraali ka noqdo ururkan barnaamijyo xiisa ah isku soo noqod wacan nabaad diinayo.